السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحابتي قالي وانا سلام مالك دافع عنك ادك جبتي ماشي انا قدام السنوا سلمان حسن اوفيشال كسو دواده دad ku shito YouTube channel ga fadlan subscribe share like comment share adan kugu dhamaan intaas ba okay asxaabta qaaliga ah maanta waxaan halkan u soo fariisanay ama halkan maanta la soo fariisay waxa weeyaan waa barnaamijka jacaylka ee arrimaha jacaylka ee bulshada ama dadweynaha ama dadka igu xiran aniga ee daawanaya inaan ka caawiyo xagga arrimaha jacaylka waayo waxa la yiri adiga waxa ku jira ama adiga waxa ka maqan walaalka ayuubka adiga waxa haystina walaalka ma haysto okay asxaabta qaaliga marta arrimaha jacaylka markuu leeyahay dad badan ayaa wax si qadan ayaa u arka kara barnaamijka horta ma ahan in qofka si kool loo wacayo oo lagu oranayo maxaad ka aaminsan jacaylka ma ahan in qofka madartay xagga la soo furtay lagu oranayo ka waran arrimaha jacaylka si loo aragta ma ahan ee barnaamijka jacaylka ayaa ah in aan caawiyo ama aan talo isku daan walaalahayo waxaan rabaa inaan madartay barnaamijka waxa ay faahfaahiyay barnaamijka waxa weeyaan in qofka madartay oo number WhatsApp ka in madartay oo qofku intuu qoraal ku soo qoro sida imika kale in qofku madartay WhatsApp ka uu igu soo qoro dhibaatada haysata marka aan video ahaan uga soo jawaabo insha Allah haddii la rabo oo arrimaha jacaylka ah marka aan soo qabanay daawadaha koowaad insha Allah hadalkiisa iyo sidaan fikir uga dhigno insha Allah haddii la rabo waxaan rajeynayaa inuu fikirkeenu noqdo mid wanaagsan oo isna ku guuleysto waayo laga yaabaa inuu isagu iga fikir wanaagsan yahay ama iga fikir fiican yahay balse laakiin inaan anigu fikir ku dhibinina waa noo qasab maasha Allah wuxuu daawadaha koowaad soo qabto wuxuu assalaamu calaykum walaal salmaan magacaygu waa buu yahay Khalid waxaan joogaa dalka Itoobiya gaar ahaan dire dawac talawaati rabbi kan walaalkaana waa muhiim waxaan rabaa gabar ayaan jeclahay iyadu way rag badan tahay gabar ayaan jeclahay iyadu laakiin way rag badan tahay okay sidaasay tahay waxaan rabaa inaan soo jiito sidee ku soo jiidan karaa gabadhaas father of love Salman okay horta anaa baa jacaylka ma ihi middaa jirta okay walaalkeen oo jooga dalkan Itoobiya gaar ahaan diraba wuxuu naga soo codsaday ama uu soo dhiibtay gabadh ayuu jecel yahay laakiin gabadhan way rag badan tahay why ma isweydiisay sababta u rag badan tahay gabadhan saasa danta wuxuu seen anu ku soo jiidan karaa ama anu mustaqbal ayaan ka rabaa guur ayaan ka rabaa sideen am anu uga dhigan karaa mideena am soo jiita oo iyada kaligeed ku kooban okay brother horta marka lagu leeyahay jacayl sida dareen waa naxariis waa dulqaad waa ixtiraam waa farxad waa dhool cadeyn nolosha haddii uu jacayl lama midoobay lama wada suuqay because you saasana jacaylku si kala badan yahay mid waxa jirta walaalka jeceshahay mid saaxiiba ah mid familkiina waxa jirta aad qof jeclaatid adduunkan amaanta waxa ku nool 7 bilyan dhibic hal oo qof yaa ku nool intaas oo qof hadana waxa jira qof ay ka jeclaan koos ma ahan qofkan inuu maadartay waxa uu doortay ma waxa aad cusubtay ma ahan kaliya wax aad dareen ugu dhiibay oo qofka aad ka heshay oo weliba jeclaatay okay diikan magaciisa muxuu dhahay laakiin magaciisa waa ilaahay wax saaka gacmaha magaciisa muxuu dhahay magacaygu waa Khalid okay Khalid saaxib dhegeyso horta gabadhu yarag baantay Soomaali horta maama Soomaali ay jirto tirada gabadhu kulna way shiyaan hal way kala baxaan okay saaxib adoo mid samee saaxib hadii aad aniga tala iga qaanis mid samee okay waxaad sameysaa gabadha jeceshahay kama maaran weerag badan tahay okay ayu maaragtay jawaabtaadu saas uma sii deeno haween gabadha waxaa samaysaa mar waliba gabadhaas horta isku day inaad gabadha soo jiid erey macaan ku dhahay mar waliba inaad u naxariisatay adigu ma aha inaad maaragtay aad qofta ku tiraad mar waliba maxaa ragga kala socotaa ragga kale maxay leeyihiin maaha gabadha waxaa la rabaa inaad adigu soo jiid inaad xitaa ragga markay la socotaan aragti inaad ka cabirto maaha oo inaad u dhowla cadiis waayo haddii aad u dhowla cadiis waxaad dareemi kartaa kalsoonida jirta adiga laakiin haddii aad ka cabirto soo maaha gabadhaas waan ogahay waad maseeri kartaa qofka waay waa jecesha qof jecel ma arkin qofka iskala socda ama la qoslaya ama la kaftan ma arkin
laakiin iyadoo dana saasa waa inaad u samirtaa qofka waayo jacaylka haddii aan loo samrin aan loo dulqaadan jacaylku waxa maaha jacaylka marka loo samro ee loo dulqaato waa mid mar walba okay saaxib Khalid mid ayaan kuu sheegaya aniga hadda gabadhaas waxaad samaysaa wax kale maaha inta u tagtay ama baka soo qaad aniga ayaa Khalid gabadhiina waa tan halkan kaamirada gabadhaha adiga gabadhi daawanaysana si fiican i daawo macmiidaan ka soo qaadaya gabadha ayaan ka soo qaadaya okay intaan baxo intuu aanu gabadhaas ayaan ku dhihi lahaa macanto walaashay si fiican i dhegeyso aniga waa adiga adiguna waxaad tahay aniga run ahaantii anu waxaan qofka keliya aan silba u jeclahay waa adiga jacaylkaygana ma ahan mid afka oo keliya ee waa mid qalbiga dareen ahaan iyo welibana qalbigayga mid ka soo go'ay waad ogtahay jacaylku inuu xanuun badan yahay soo kale waad ogtahay inuu jacaylku farxad badan yahay laakiin marka aad jacaylka uu keliga dhinacaaga yahay waa wax aad iyo aad laakiin walaashay mid ayaan kuu sheegay anigu waxaan ahay mar waliba qof garabkaaga taagan qof mar farxadaada jecel naxariistaada ereyo macaan markaan ka helo mar waliba aad iyo aad ayaan jeclahay marka walaashay waxaan ku leeyahay aad iyo aad ani farxadaada ayaa ii muhiima waxaan jeclahay mar waliba waa qosolkaaga sidoo kale waxaan jeclahay mar waliba waa la hadalkaaga kaftankaaga ereyo macaan dhankaaga iga soo baxa ayaan jeclahay mar waliba inaan mar waliba kula hadlo aad ayaan jeclahay laakiin nasiib xumo intaasoo dhan marka walaalkay Khalid waxaan ku leeyahay anigu gabadhaas inta u tagtid ku day aad ayaan ku jeclahay mar waliba adiga ayaan ka fikiraa markaan adiga ka fikirayna run ahaantii aniga dhawaaba islaabaaba meel aan joogo waan hilmaamaa mar walba waan ku soo xasuusto xitaa waxaan jeclay inaan ku imaado ama la hadalkaaga تليفون هالنقطة أما دايركتر أما أنا وأركبه واحد جعل مرة ولا كل هذا الكاغر من نحريس هذا واحد جعل مرة ولا قرب كاغر تجنادو إلى مرة ولا بكو عاوية واحد جعل مرة ولا قف قاعد كف فرح إلى أنا أقول نقطة مركز أرك شوف أوكي خالد مركز ولا كيو أيو أنت سوي كورن لها وحكة لو كورن مجر والله إن تيجي كان قبل توجتي هكذا ناقل يدو وين لفرة دايركتر أما لا قصليسو هكذا ناقل ولا كيو صوت أوجهنا هكذا ناقل كفرح كل ده يد ولي من يد وشق مركز أركض وين فرديا أما قف لك فتمة أما قف كده أقول لا قصلاية هذا يعني فرحة واي مصير يا جماعة هن يعني أوجه إن المصير إن ما إذا وعيسو إن تقف كل فرح لكن هذا المر ولا فرحة ده يعني إيه مهمة إن كل ده هوان مركز قبل واحد يكون أركيسا إن أديكو تاي قف كلمة أدو gabadha la ogsano waxay u rag baantahay ee rag inta la gula sheekaysan wax kale ma aha wallahi walaal runta ku sheegay wax kale ma aha waxay ka raadinaysaa hal qof oo si dhab ah u jecel marka way inaad aroojid ma aha walaalkay inaad isdajisid oo samir iyo dulqaad inaad muujisid insha Allah waxaan rajeynaa walaalkay inaad jacaylka ku guuleysatid waad ku maadsan tahay intaad codsiga soo dhigisay okay daawadayaal qofka xiga hanu guda galno okay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان حصو هلا يقول ودنك إثيوبيا كان أهان دري قف أيان جعلها يقول يد وحي يقول ده يسوان كل جعلها سيدين كل وجدا إن إجعش هاي وايو أنا مسح داف أيان جعلها ساحب ترى أيان كهرباء صاحب سلمان أوكي ويلكن أوجو قدرك إثيوبيا كان أهان دري دوا قف أيان جعلها يقول ده لكن أنا مسح داف وجع لكن يد إن إجعش هاي إن كان سيدين أيان خوك أنا صار كذا اوكي horta anagu waa garasa saaxib cilmi nafsi ama qofka qalbigiisa ma akhrin karo laakiin haddana iyadoo saas waxa jirta sababo ku tusinay inuu qofka ku jecel yahay inuu ku jecel yahay horta mid ayay jirta haddii aad qofka isla hadashiin qofna taga saac ama kula soo hasho ama adu aad wacdi oo telefoon ama haddii noqotaba director ahaan caayis kulantiin oo magaalada dutin oo ku imato horta gabadhaas ma hadaan ku sheego kuma necba soo kale ku jeceshahay laakiin sabab ayaa jira ka yaa adigu ku tusay inay ku jecleen sabab ku tusay hadda ayaa ku sheegay horta jacaylka horta xadaafka ah wuxuu keenaa masiir dabal masiir adiga keenaa waran qofka zayd jeceshahay waxa laga saa adigoo isagoo caadi kula hadlay ka sheegay inuu qofka la hadlayo isagoo family la hadlay ay inuu ninkan la hadlayo تاوي دعدا وتاسنا وجعل حداف ما قد داري صح ورنتا لكن من مركز قال إن إسدهلي ونكسنتها ودنا أو نكسن كرر عليه قفك المحول مشكوسية ما حقول بعد
واي صوت سر وسمينا ومحل إلى ده وقصر ما هالمرة اللي نحكي تلفون بقول لك مش مشانتهاي مرة ما أنا الله الله يمشوا حرير السوق مرة الله الله أنا هو مش مشاني يقول هذا إن قبل أنا استحداث أرجع لها يوم لكن يجي عشان أوكي برو ما قبل هذا بقولك بس عايش الأجيال كده لكن أنا أهم حتى لا يقصينها لا أنا قلت له ولا سنتي أما قلت له في لاتي أما قلت فيك ولا سنتي لكن حتى لا يقصينها كوز واحد كليه هاي قبل صرته تجاري سيدنا عن تجاري ما أهل إلا تفكر كله يوع كده أما قبل كنت سحبت لك كده قبل ما تعيش مسيح دافع وجه شرف ما أهل أديكوا النف حتى لك هلا يوم أهل تجاري waxaan ku tijaabinahay waxa ku tijaabin kartaa ana ku sheegahay digasho horta qofka marka isla kuleetiin ay ku imaado ama dhinaca ka fadhido mar waliba waxa laga sheekaysaa in WhatsApp-kaaga ama Facebook-kaaga ay dad badan kugu soo xidhneen oo gabdha ah ee fiiriya marka waxaad ku dhahdaa in gabadh ayaga dhahday ma dhuuti xiriir ma ila waxaan asbarnay lambarkayga aan siiyeed markaas ay u dhahday xiriir ayaan sameynaa ka waran haddaan sameyno marka adoo sheekada wada indhahayga iyo la soco wajigayga qofkaas haddii ay isbedesho oo ma aragtay indhahayga ama caro ka dareentid gabadha waa gabar ku jecel laakiin gabadha ay iska faraxdo iska qodasho aragtid inay iska qodasho danka ma laha sax waxaan ku leeyahay ay danka leeyahay inaad ka qorsatid ma haddii aad jeceshahay aad aragtid ku jecleen markaad tijaabisid ma ahan inaad ka tigtid oo tira gabadha kuma jeclo laakiin waxaa laga rabaa inaad dadaalkaaga laba laab si aad gabadha u dareersiin inaad jeceshahay okay asxaabta qaaliga waad ku maasantay saaxiibtanadaada insha Allah waxaan rajeynayaa inaad taladeeda aad ka heshay amaba ay ku qanacsan amaba aad ku dhaqan doonsid wax wanaagsan aan ku rajeynaa walaalkay okay daawadayaal aad iyo aad ayaan mahadsantihiin fiidiyowga waxay insha Allah haduu leeyahay inta qof hadana igama ahan xumaan inaan iga su'aabay ama fikradiina ay xumaatay laakiin insha Allah fiidiyowga ayaa normal waqtiga ayaa inoo saamix waayay fiidiyowga insha Allah fiidiyowga xiga salaasada dambe insha Allah haduu leeyahay ayaad igala socon kartiin insha Allah waxaan isku wanahay si shirgarsan si aad walaalihiina kale aad u gudbisaan ama u gaaro dad ayaa u baahan barnaamijkan dad adiga u baahan dad ayaa u baahan ama qof ayaa jira dhibaato adigu haysto qof saaxiibkaaga ama walaalkaaga ayaa haysta marka please haddii aad garanaysa ama aqoon leedahay qof dhibaato haysto loo soo gudbi haddii aad garanayna xitaa qof saaxiibkaaga u sheeg ama sii sheeg insha Allah asxaabta qaaliga waxaan ku dhammaan intaas iyo waxaan iga tagayaa nabadgelyo Ramadan